waa astaan horumar oo dhanka xiriirka dibadda u ah dalka Soomaaliya. Calanka buluugga ah ayaa maanta dib loo suray safaaradda Soomaalida dalka Ciraaq muddo ka badan 20 sano. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kaashanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa si wada jir ah maanta xariga uga jareen. Markii ugu horeysay ilaa 1993 ayaa safaarad Soomaaliya oo meel rasmi ah ku taalo oo gurigeeda degan oo calankii aan saarnay waxay tahay sharaf weyn aad dadka Soomaalidu meel ay joogaanba Marwo Khadiija safiiradeena in loo mahadnaqo iyo staafkeeda halkan jooga oo intaasoo dhan ka shaqaynayay waa wadankani waa wadan muhiima waa wadan caraba waa wadan muslina waa wadan aan taariikh dheer wada leenahay. kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka socotay dalalka carabta ee ku sugan dalkan Ciraaq. كم يسعدني في هذا الصباح ونحن نستقبل السنة الهجرية الجديدة أن نلتقي بسماحة معالي وزير الخارجية الصومالي في بغداد لكي نتشرف بافتتاح السفارة الصومالية وهي لا تبعد كثيرا من السفارة السودانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أدبا نقول فرح سنة يرتين كسو قيب قالوا على مسارك سفارة دينا جمهورية الصومالية الفدرال بغداد إن كسو قيب قالوا أدبا نقول فرح سنة هاي وحنوار كايني واجب تهي سفارتها كله دو مركا مناسبة وكاله إيميل كده عيسو إن كسو قيب قالان فنتي ومناسبة وناكسن وليبا الدولة الصومالية دا إذا تحكي لنا سحرير كوناكسن Soomaaliya iyo Ciraaq ka dhaxeeya anigoo matalaya guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sharaf weyn oo ah in calankeena maanta la saaray meesha tan waxaan rajaynayaa safaaradda iyo safiiradda Kharalaasi iyo shaqaalaha safaaradaba in Ilaahay uu waafajiyo sidii lagu sii nooleyn lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ciraaq. munaasabad aad iyo aad wanaagsan ayay ahayd maxaa yeelay 22 sano kadib markii safaaradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq magaalada Baghdad ay xirantay in maanta lagu guuleystay in dib loo furo oo cilaaqaadkii labada dal iyo iskaashiga labada dal oo ah laba wadan oo cilaaqaad iyo iskaashi xoog badan oo taariikhi u ka dhaxeeyay uu dib u soo laabto safaaraddan ay rumuud iyo horseed u noqoto cilaaqaadka sii soo celintiisa arrin aad iyo aad loogu farxo waaye. halkan waa xafiiska danjiraha Soomaaliya ee dalka Ciraaq danjire Khadiija al-Maqsuumi oo iyana iiga waramaysa dareenkeeda ku aadan maanta safaaradda oo dib loo furay. waxa aad ugu faraxsanahay maanta in safaaradda Soomaaliya Baghdad la furay bishii ay tahay maalintii 15 Oktoobar 2015 sharaf waxay maanta cilaaqada labada dal Ciraaq iyo Soomaaliya waa muhiim. arinta kuwa ka bilaaban waxa waa cilaaqada labada dhinac dawladeed dhinaca diblomaasnimada iyo siyaasadda xoojinta dhaqaalaha iyo waxbarashada. waxaa ku soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya xagan laga furay wixii ala facilities oo loogu baahan yahay diyaar u nahayna safaaradda Soomaaliyeed xagan ugu qaban insha Allah. jaakadan la'aanteedana meelaha qaar ma ku suurtagelayso inaad aado. Baghdad waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammaanka daran caalamka. halkan aan ku sugannahay waxaa la yiraahdaa qadka cagaaran ama green zone waxaana degan hay'adaha gargaarka iyo waliba safaaradaha caalamka ee laakiin kaga howlgala dalkan Ciraaq. safaaradda Soomaalidu waxa ay ku taalaa goob ammaan ah oo amnigeeda si aad ah loo sugay. Cabdiraxmaan Maxamed Cartan waxa uu ka mid yahay shaqaalaha Soomaalida safaaradda waxaana halkan uu yimid sanadii 1988 dagaalkii Iiraan oo dabayaaqo ah kii Ciraaq iyo Kuwait iyo waliba waxa uu ku sugnaa halkan dagaalkii lagu riday Saddam Hussein 2003 meelna ugama qaxin dalkan Ciraaq isaga iyo caruurtiisa iyo waliba ooradiisa waxa ay ku nool yihiin bartamaha magaalada Baghdad. waxa aan weydiiyay bal inuu sawir cad iga siiyo ammaanka halkan iyo sida ay ugu nool yihiin. annaga Soomaalidu dadka guud ahaan waxaan wax la qabnaa hadday tahay mid shaqo helid hadday tahay mid amni haddii ay tahay mid dhaqaale dadka guud ahaan waxa ay qabaan baanu la qabnaa. annaga haddaanu nahay Soomaali horta dad baa nagaga dhinteen ilaa 4 qof ba dagaalada nagaga dhimatay oo qaar si toos ah loo dilay qaarna ay ku dhinteen qaraxyo iska dhacay
noloshuna aad iyo aad bay noo saamaysay haddaanu nahay jaaliyadda soomaaliyeed oo halkan ku nool. qof walba halkan jooga qaarkood waxa ay wataan jaakadaha xabadda la ysaga ilaaliyo, taas oo ay mar kasta muhiim tahay in qofka uu wato. gawaarida inta badan diblomaasiyiinta iyo dadka kale la saaraa ayaa waxay yihiin kuwa aan xabadda karin ama loo sameeyey nooca loo yaqaano bullet proof. waxaa sidoo kale aan la yaabay oo aan arkay eeyaha wax baara xitaa qaarkood waxa ay wataan jaakadda bullet proofka. dalka ciraaq waxa uu ka mid yahay dalalka dagaalada sokeeye ka socday amba ka qarxay, waxaana la sheegaa in Soomaaliya iyo Ciraaq meelo badan ay isaga mid yihiin dhanka colaadda. laakiin maanta nasiib wanaag safaaradda Soomaalida ayaa dib loo furay iyadoo muddo ka badan 20 sanana ay xirnayd. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, xarunta safaaradda Soomaalida magaalada Baghdad, dalka Ciraaq.